waxaa inoo sheegaysaa diinteena islaamku inuu alle u saqiray nebi Sulaymaan jinkaas oo ahaa kuwo u adeegi jiray nebi Sulaymaan calayhi salaam. waxa ay ahaayeen kuwo dhisa dhismayaasha iyo tamaashiisha. waxay soo bixin jireen luulka badda gunteeda hoose. waxay u hogaansanaayeen amarka nebi Sulaymaan calayhi salaam. hase yeeshee waxaa jirtay aragti leh jinniga inay u dhiseen nebi Sulaymaan magaalo dhammaystiran oo aad iyo aad u weyn. waxaan lagu magacaabi jiray magaaladii nuxaasta. waxaan idiin soo bandhigi doonaa qisada magaaladii jinka. magaaladani oo ku tilmaaman cabsi iyo argagax, balse aan la sheegi karin halka ay ku taallo magaaladani. ma tahay magaaladani mid xaqiiqo ah ama waa khiyaali oo dadka ayaa aliftay? dadkuna waxay u qaybsan yihiin doodo badan ayaa ka dhex taagan jiritaanka magaaladani inay tahay mid xaqiiqo ah iyo kuwa u arko inay tahay khiyaali khuraafaad lasoo aliftay ah. waa maxay sirta ku hosduugan magaaladani? barnaamijkeena maanta ayaan uga hadli doonaa. fadlan like saar fiidiyowga. aan u guda galno qisadeena maanta. wuxuu ku sheegay Abu Hamid al-Qurnadi kitaabkiisii Tuxfatul Albaab wa Nuqbatul I'jaab in khilaafadii umawiyiinta Cabdilmalik ibn Marwan inay soo gaartay sheekada magaaladani nuxaasta ee uu u dhisay jinka Sulaymaan calayhi salaam. wuxuu u diray cumaalkiisii dalka Morocco Muusa ibn Nusayr isagoo ka dalbayo inuu aado magaaladaasi. dhab ahaantii wuu baxay ibn Nusayr isagoo wata ciidankiisii. waxayna socdeen 40 maalin ilaa ay ka gaareen dhul barwaaqo ah, dhul aad u ballaaran, biyo badan leh, iyo geedo iyo xayawaanaad iyo ubaxyo kala nooc ah. waxaa markiiba u muuqday derbigii magaaladii nuxaasta. wuxuu ahaa derbi aad u weyn oo aysan dhisi karin basharku. wuxuu u qaybiyey ibnu Nasiir ciidankiisii 2 qaybood, wuxuuna amray inay kusoo wareegtaan magaalada derbigeeda si ay u soo raadiyaan albaab laga galo ama meel dadku ay ka galaan. waxay maqnaadeen ciidankii 7 maalin, wayna soo laabteen si ay u sheegaan hogaamiyahoodii inaysan soo arag wax albaab ah. waxay bilaabeen inay qodaan jidaarkii hoostiisa, derbiga hoostiisa, balse ma ahan derbiga mid dhaqaaqayo oo sidiisii ayuu iska noqday. faraha ayuu ka qaaday. kadib way ku guuldareysteen, wayna ku fashilmeen inay saa ku galaan. waxay dhiseen fundiyaashii ciidanka jaranjaro si loo eego waxa ku dhex jira magaaladani. wuxuu ballan qaaday ibn Nusayr inuu siinayo ujro qofkii koro soona gudbiyo waxa ku jira magaaladani gudaheeda. waxaa koray saxaabi, balse markuu eegayba waxaa isbedeshay xaaladiisii. wuxuuna bilaabay inuu qoslo, gacmahana isku garaaco ilaa uu ku dhacay magaaladii gudaheeda. waxaa bilowday qaylo, buuq iyo sawaxan socotay 3 maalmood ilaa ay kaga argagaxeen ciidamadii. inay ku abuurmatay cabsi iyo walwal. wuxuu ballan qaaday haddana ibn Nasiir inuu siinayo qofkii kale soona gudbiyo magaaladan wax ku jira 1,000 diinaar. wuxuuna u dardaarmay inuusan noqon sidii saxaabigii hore camal. wuu kula ballamay nin arrinkaasi, wuuna fuulay jaranjaradii, balse wuxuu noqday sidii ninkii hore camal. wuxuu bilaabay inuu qayliyo, qoslo, gacmahana isku garaaco, kadibna sidaas ugu dhaco magaaladii gudaheeda. haddana wuu ka walwalay. ibn Nasiir wuu ka walwalay siduu u sheegayaa, si uu noqonayaa khaliifada, muxuu u sheegayaa? haddana wuxuu ballan qaaday in uu nin koro, uuna siinayo ninkii koro 2,000 oo dirham. waxaa fuulay saxaabi, wuxuuna amray in laga xiro xarig dhexda looga xiro. ninkii wuu koray, haddana wuxuu noqday sidii kuwii camal. wuu ku dhacay, balse waxaa soo jiiday ciidamadii. wayna soo jiideen, balse wuxuu kala noqday 2 qayb oo uu kala jarmay. saxaabigii wuu kala jarmay, wuxuu noqday 2 qayb. qayb waxay ku dhacday magaaladii gudaheeda, qaybna xariggii ayay soo raacday oo ciidamadii ayuu ku soo kordhacday. halkaas ayay u dambeysay. argagax aad u weyn ayaa ka dhacay. ibn Nusayr wuxuu u baqay ciidamadiisii, kadib dib ayuu u laabtay. ma kula tahay magaaladani mid xaqiiqo ah ama waa bala awaal?
fadlan fikirkaaga hoos noogu soo dhiib. mahadsanid.